soo dhawaada ardayda qiimaha badan leh maanta waxaan sii wadi doonaa lecturekeennii labaad ee kooraska pharmacology-ga waxaanu ka hadli doonaa pharmacokinetics. marka koowaad waxaan isweydiinaynaa waa maxay pharmacokinetics inaynu bal si guud iskula fahanno intaynaa horta hore gudaha u gelin casharka. pharmacokinetics waxa weeyaan waa shaqada uu jirku ka qabto dawada amba waa saamaynta uu jirku ku leeyahay dawada. tusaalahan siiyo qof baa qaatay 500 paracetamol miligram afku ka qaatay calooshay tagtay caadi ahaan waa adke waa solid paracetamolshu kadibna waa la soo nuugay kadibna waxaa lagu sameeyey distribution oo waa la baahiyey ilaa ay ka tegaysa markaa side of actionkii loogu talagalay. intaa shaqada la qabanayo ayaa la yidhaahdaa pharmacokinetics. waa maxay haddaba pharmacokinetics? pharmacokinetics waxa weeyaan waa refers that to the body does the drug. waa waxa uu jirku ka qabto dawada. waxaan ku dhigan doonaa markaa pharmacokinetics intaan dhiganno afar process ayaanu ku dhigan doonaa amba afar steps baan ku dhigan doonaa oo la yidhaahdo absorption oo ah markaa inay dawadii lasoo nuugo, distribution oo in markaa dawadii la baahiyo jirkii lagu baahiyo, metabolism oo markaa in dawadii wax laga bedelo inagoo arki doonaa ayaa iyadana aan dhigan doonaa, excretion oo markaa khashin saarkiya. afartaasoo loo soo gaabiyo admin ayaynu ku dhigan doonaa maanta intaynu dhiganno pharmacokinetics ayaynu ku dhigan doonaa. haddaba absorptionku waa in dawadii lasoo nuugo oo dawadii qofku markuu liqo iyadoo weliba ku xidhantahay side of actionka, side of administrationku qofku ka qaatay iyadoo ku xidhantahay ayin dawadii lasoo nuugo. laba sibuu markaa qofku dawadii ay jirka usoo geli kartaa, interdrag ay usoo geli kartaa in noqoto mararka qaarkood direct or indirect. direct waxay noqon kartaa dawada qaarkeed baa markaa laga qaataa AV oo noqon karta direct in markaa blood circulationkii loo gaarsiiyo, amba indirect inay noqoto amba muscularkii amba laga qaato amba in afkii laga qaato deetana absorption dawadii lagu soo sameeyo. distributionku waa in dawadii la baahiyo wey. marka lasoo nuugo dawadii absorption lagu soo sameeyo, stepka labaad waa maxay? waxa weeyaan waa distribution dawadii la baahiyo si loo gaarsiiyo markaa bloodstreamki. maxaa markaa la gaarsiinaya distributionka? waxaa la gaarsiinaya markaa interstitialkii iyo intracellular fluidskii baa la gaarsiinaya. stepka saddexaad waxa weeyaan waa metabolism waa habkii dawada ayaa la bedelayaa by markaa transformation baa lagu sameynaya oo inta badan waxay ka dhacdaa markaa liverka iyo markaa other tissueska kale ka dhacda. liverka inta badan ka dhacda oo dawadu markaa wax lagaga bedelaa. elimination way waa khashin saar in dawadii jirka laga saaro iyadoo markaa meelo kala duwan markaa jirka laga saaro. marka qaarkood maybe waxay noqon kartaa in urine kaadi ay ku baxdo amba baylka ay ka baxdo amba feces oo saxarada ay ka baxdo. sawirkani wuxuu inoo muujinayaa markaa afartii process ay loo soo gaabinaya adminka ayuu inoo muujinaya. tusaale ahaan marka dawadii qofku qaato, dose of drug administrationkii markuu qofku qaato ilaa iyo ay ka tegaysa markaa side of actionkii, shaqada intaa ka dhacaysa ayaa loo aqaanaa markaa pharmacokinetics. waa intaa weeye ayaa loo aqaanaa pharmacokinetics. in dawadii la qaato markaa absorption lagu soo sameeyo, dabeetana blood circulationkii lasoo gaarsiiyo, markaa distributionkiisa jirkii loogu qaybiyo. intaa shaqada ka dhacaysa ayaa loo aqaanaa pharmacokinetics. rootska dawada laga qaato meelo kala duwan ayaa jirka laga qaataa, markaa dawadu ayaa laga qaataa. markaa rootska ugu caansan ee markaa drug administrationka laga qaato waxaa ka mid a ee ugu caansan in injection lagu qaato, amba AV ha noqoto amba IM ha noqoto, in injection lagu qaato oo markaa direct loo qaato injection amba in markaa IM-kaba qofkii laga siiyo. sidoo kale hab kale in dawada ku qaadan karna waxaa ka mid a inhalation. dawooyinka inta badan asmada loo isticmaalo waxaynu ku qaadanaa inhalation aynu ku qaadanaa. waxyaabaha kale inuu siyaaba kale loo qaato waxaa ka mid a per oral administration inaynu afka ka qaadano, waxaa ka mid a dermal administration inaynu markaa maqaar ka qaadano, iyo inaynu u qaadano markaa rectal administration. waa markaa meelaha ugu caansan ee dawooyin ka qaadan karna wey. way jiraan meelaha aan common ahayn oo kale oo dawada laga qaato sublingual iyo waxaasay ku jiraan, laakiin common maaha. inahan baa ugu commonsan oo markaa dawada laga qaata.
waxaan eegaynaa factorieska influences absorptionka, waxyaabaha marka absorptionka saameynta ku leh in dawada lasoo nuugo ayaynu eegaynaa. Kow waxaa ka mid ah pH-ka, bada acidic iyo alkaline ba ha noqoto. pH-ka waxyaabaa pH-ka saameyn bay ku leedahay dawada. waxaa kaloo saameyn ku leh markaa blood flow-ga to absorption site-ka, meesha dawada laga qaadanayo, dhiigga maraya amba dhiigga soo gaadhaya saameyn bay ku leedahay. Tusaalahaan small intestine-ka oo dee absorptionka ugu badani ka dhaco, dhiig badan bay u baahantay, mar badan dhiig badan baa jiro, iyo stomachka hadda isbarbar dhignaba waxaa u badan markaa inta badan dhiig badan ay tagaan markaa small intestine-ka. marka waxay ku xidhan tahay uun sayidkaa dawada laga nuugayo ee qofku ka qaatay iyo markaa blood flow-ga imanayo ayay saameyn ku yeelan karta markaa absorptionka in dawo lasoo nuugo. sidoo kale waxaa iman karta markaa total surface area ayaa iyadana qayb ka qaadan karta, meeshaasi markaa inta leegtahay meelaha yaryar oo kale waxa laga yaaba in absorption weyni ka dhicin. waxaa ka mid a contact timeka absorptionka oo ay ka mid tahay markaa for example ay noqon karta GIT-ga. GIT-ga oo kale dawadu inta kolba joogta ayay ku xidhan tahay markaa absorptionkeedu waqtigeedu intuu qaadanayo. tusaale ahaan GIT track oo kale haddii qofku uu leeyahay, tusaale ahaan dhaari oo kale hadduu leeyahay qofku, waxaa laga yaabaa in absorptionkii marka uu hore u degdego ayaa dhici karta. qodob kale ka hadlayna waxa weeyaan waa bioavailability-ga. bioavailability-gu waxa weeyaan waa qiyaastii dawadii la qaatay inta gaadhay markaa systemic circulation-ka inta gaadhay ayaa loo aqaanaa bioavailability, ayadoo inta badan lagu cabira markaa percentage ayaa ugu cabiraa, percentage baa lagu cabira. tusaale ahaan dawadu uu qofku ka qaatay markaa AV-ga uu ka qaatay, waxaan odhan karnaa bioavailability-geedu waa 100%. tusaale ahaan dawadu qofku uu ka qaatay afka uu ka qaatay GIT calooshii marka tagto, waxaa laga yaabaa haddii dawadaas ahayd 500 milligram inay tagaan markaa 70 milligram inuu qofku caadi u helo, oo 25 kaleba waxa laga yaabaa absorptionkii iyo calooshii inay markaa ay ku hadho. marka taasaa la idhaahdaa bioavailability-gu waa dawada intii loogu talagalay ee gaadho wey.